Wararka laga helay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in dad taageersan hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay halkaasi ay ka dhigeen banaanbaxyo nabadeed. Banaanbaxani ayaa waxa ay ku taageerayeen mowqifka hoggaanka Ahlus Sunna ee dhismaha Galmudug. Waxa uu banaanbaxaasi u bilowday kadib markii laga soo baxay salaada Jimcaha iyaga oo dadka dhigayay in ay wateen sawirada hoggaanka Ahlus Sunna. Ciidamada ammaanka ayaa sheeda ka ilaalinaya banaanbaxa waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ay sheegayaan in si nabad ah ay uga qayb qaateen banaanbaxa. Qaar ka mid ah dadka ka qayb galay banaanbaxa oo culimo u badnaa ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ay ugu baaqeen in ay dhowrto wadajirka bulshada reer Galmudug isla markaana dawladdu ay fuliso heshiiskii ay la gashay Ahlus Sunna. Deegaanada maamulka Galmudug oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada maamulka Galmudug ayaa waxa ka taagan jahwareer siyaasadeed oo hareereeyay dhismaha maamulkaasi waxaana ka taagan khilaaf muddo soo jiitamayay halkaasi oo salka ku haya siyaasadda. Hanaanka la doonayo in loo maro dhismaha dowlad goboleedka Galmudug si maamul loo dhan yahay ay u helaan dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.